السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أشرفت بدن فرحدي وأنا عقبان إذن رجينا يا ميل كستو أدون كاد كجوكتان سببتا هوينك اللوغا إلاليو إنay qaataan xaddi aad u badan oo qara ama xabxaba. haweenka laga ilaaliyaa waa kuwa nooceeya, sababta looga ilaaliyaana maxaa ay tahay? insha Allah halkaas aynu ku tilmaami doonaa ama aynu kaga hadli doonaa muuqaalkan. arrinta koobaad, haweenka laga ilaaliyo qaraha aadka u badan inay qaataan ama ay isticmaalaan waa haweenka pregnancy-ga marxaladda ay ku jiraan uurka ayaa laga ilaaliyaa. sababta looga ilaaliyana halkan baynu insha Allah ku sheegi doonaa. ta koobaad ama main reason-ka ugu weyn ee looga ilaaliyo waxa weeyaan glycemic index. xabxabka ama qaruhu waxa uu leeyahay maaddo la yiraahdo glycemic index, taas oo sababteedu ay tahay xabxabka ama qaruhu inuu ka kooban yahay sonkoro badan oo cufan oo istul saaran inuu ka kooban yahay. haddaba qudaarta loo yaqaano high glycemic index-ka ee qaruhu uu ka yahay ayaa waxa ay keenaan ama ay ku abuuraan dumarka uur kale inay ku sameeyaan gestational diabetes, macaan uurow la yidhaahdo, ama markaas gestational diabetes inay ku abuuraan. waa macaanka uurka inuu ku keeno arrintani, maadaama oo qaruhu uu leeyahay sonkor aad u badan inay gestational diabetes ay develop garayso haweenaydu. qodobka kale ee runtii isaguna aadka u muhiimkahay waxa weeyaan markay arrintani dhacdo ama ay timaado cunuga caloosha ku jira ee uurjiifka waxaa lagu arkaa 3 marxaladood. marxaladda koobaad inuu weynaado ama uu ku ballaadho caloosha oo uu saayid ugu ballaadho. marxaladda labaad ee lagu arko cunuga uurjiifka ayna waxa weeyaan in uu horu soo dhasho oo bilihii uu ku dhalan lahaa uu ka yaraado, sida 7 bilood, 6 bilood, 8 bilood uu ku dhasho. waxaa kaloo lagu arkaa cunugaasi inuu inta badan uu dhiiggiisu hooseeyo, uu hoos u dhacsan yahay. 3daas sababoodba waa lagu arkaa. haweenka iyaga oo uur kale isticmaalan high glycemic fruit, qudaarta ay ku badan tahay maadada la yiraahdo glycemic index ay ku badan tahay. haddaba haweenka uur kale waxaynu uga digaynaa inay ka taxadaraan oo ay iska ilaaliyaan marxaladan inay ka fogaadaan. Assalaamu calaykum.